kulanti wacan oo wanaagsan qeyrta hawada nagala xiriiday halkani waa telefishinka Universal Studios magaalada Muqdisho daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka qodobada aan caawa barnaamijka dabagalka wararka idinku hayana waxa kamida dagaal geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ururka Al-Shabaab maanta waxa uu ku dhaxmaray deegaanka Goofguduud ee duleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay faahfaahin ayaa idinkaga soo gudbin doona qodobkaasi madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxa uu ku daafuray qorshaha 5 sano ee soo aadan ee horumarinta qaranka waraysi ayaan qodobkaasi idinkaga soo tabin doona xilli dood adag ee ka jirto sharciga doorashooyinka Soomaaliya isla markaana lagu muransan yahay nooca doorasho ee Soomaaliya oo markaa baarlamaanku ay ka doodayaan sharcigaasi ayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya waxa uu ku adkeysanaya in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah madal fagaara ah ayuu maanta hadalkaasi ka sheegay barnaamijka ayaan idinku soo tabin doona tan iyo markii madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya 17 bishii Julaayo 2019 ee sanadkan uu magacaabay guddiga wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya maxaa u qabsoomay guddigaasi xagee ay wax u marayaan waraysi ayaan idinkaga hayaa xubin kamida guddigaasi dhankeeda Somaliland maanta waxa ay shaacisay in wada hadalladaasi ay sharuud ku xirayso qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka dabagalka wararka waa mar kale ee barnaamijka dabagalka wararka waagaag mar kale ismaqlar wanaagsan qeyrta hawada nagala xiriiray magacayga oo Cabdicasiis Ibrahim Axmed oo barnaamijka dabagalka wararkana aniga ayaa idinkaga soo tabinaya stuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho barta Facebookna si toos ah ayaad nagala socotaan ee Universal TV aan ku bilaabay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxa uu ku daafuray qorshaha qaran ee 5 sano ee soo aadan qorshahaasi horumarinta qaranka oo ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya waxa munaasabad lagu daafurayay lagu qabtay aqalka madaxtooyada inta badan wasiirada iyo agaasimayaasha wasaaradaha gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo daafuray ayaa ka qayb galay madashaasi lagu daafurayay qorshaha 2020-2024 ee wasaaradda qorsheyntu ay soo diyaarisay ee qorshaha horumarinta qaranka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dul istaagay muhiimadda howlaha dawladnimada iyo hirgelinta howlaha shaqo ee dawladdu ay muhiimka u yihiin qodobada ku jira 5 sano ee soo aadan qorshaha horumarinta qaranka way muuqataa in qorshaha 5 sano ee hadda hor yaalla oo aan haysano buugtooda uu yahay mid ku dadaalaya fududeynta iyo xoojinta geed socodka iyo habraacyadii aynu horay u degsanay oo ay ka mid ahaayeen qorshihii soo kabashada iyo u adkeysiga ee loo yaqaano RRF Recovery and Resilience istaraatiijiyadihii muhiimka ahaa ee aynu u degsanay si aynu u higsanno yoolal gaar ah oo noo horseeda xasilooni siyaasadeed dhabu heshiisiin bulsho iyo horumar baahsan oo dalkeenu u hana qaado ama ka hana qaado waana taas sababta loo xushay in qorshahan xoogga lagu saaro 4 qodob oo aasaas u ah horumarka dalka iyo dadka Soomaaliyeed kuwaas oo kala ah 1 in la helo deganaansho siyaasadeed oo hawsha la qabanayo horumarkeeda si isdaba joog ah oo xiriir ah loo qabto waxa loo yaqaano continuity oo xaqiiqatan wasiirka soo diyaariyay qorshahan aan oran karo inuu yahay 20 sano ugu dambeysay wasiirkii qorsheynta ugu cimri dheeraa macnaheedu waxay tahay
macnaheedu waxay tahay continuity-ga shaqada isdaba joogga ah waxay leedahay miro dhal la taaban karo maxaa yeelay hawshii bilaabata waxay ku bilaabataa qorshe sidaan oo kale iyo dhammaystir marka waxaas oo dhan waxay ku imaan kartaa siyaasad degan oo xasiloon iyo ku imaan kartaa ummadda Soomaaliyeed waxay maanta u baahan tahay inay ku mintido horumarkooda qarannimo ayadoo urursan midaysan isku laabfiyow ayna markaas laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan wax soo saarka noocyada kala duwan hadday noqon lahayd dhaqashada xoolaha beeraha kalluumaysiga warshadeynta iyo wax dhoofinta tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta bangiyada iyo hay-adaha maaliyadda dalxiiska oo aan isleeyahay Soomaaliya aad iyo aad yaan uga daahsannahay iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah uu Ilaahay nagu manaystay kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ka hadlayay daahfurka qorshaha qaran ee 5 sano ee soo aadan haddaba muhiimad intee leeg ayuu leeyahay qorshahaasi 5 sano ee ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya su'aashaasi waxaan weydiiyay wasiirka wasaaraddaasi xildhibaan Jamaal Xasan oo markaasi ah wasiirka wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda Soomaaliya waxaan soo bandhignay qorshihii 9aad ee horumarinta qaranka ilaa iyo xorriyadii ama kii labaad ilaa iyo 19 qorshahan oo ah qorshe 5 sano oo asaaskiisu yahay yareynta saboolnimada waddanka oo ka qaybsamay 4 tiir oo kala ah xasilinta amniga iyo xasilinta sharciga horumarinta dhaqaalaha siyaasad loo dhan yahay xasiloon iyo arrimaha bulshada qorshahan waxa uu asaas u ah yareynta saboolnimada si loo yareeyo saboolnimada 5 sano soo socota waxa uu ka kooban yahay 400 page oo qiyaas karisa waxa wada tashiyo buuxa la soo sameeyay dhammaan dowlad goboleedyada waxaana halbowlo waxa qoridiisa iyo shaqadiisa iyo arrimahaas oo dhan isku dubritiisa saaxiibada wasiirada qorsheynta ee dowlad goboleedyada jooga iyo anagoo iskaashanayna howlwadeennada wasaaradda qorsheynta federaalka aad iyo aad ugu mahadnaqay dhammaan dadka soo qayb qaadatay waxaan rajaynayaa inuu waddanka uu qorshahan ku hago jid sax ah oo horumar leh oo barwaaqo leh oo nabadgelyo taam leh hirgelinta qorshahan wuxuu u baahan yahay hawl aad u culus maxaad u haysataan oo agab ah qorshahan sida ka muuqata uu qiimaysan yahay qiimayntaas qaarna waxaana uu dakhli ahaan waddanka la soo baxin waxaana wax maalgashadayaal iyo dad ganacsatada Soomaaliyeed ganacsi gaar ku leh wax yar waxa jira deeqa dibadda ku xiran marka meelo badan baa laga kabaay dhaqaalaha hadii aan leedahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee qorshahan diiradda aad ku saari doontaan ee Soomaalida waxgalka u ah wuxuu yahay waxa ah inaan fulino sidoo qoray baahiyaha dadka Soomaaliyeed aan ka turjino yareynana saboolnimada ee faqriga waddankana dhaqaalihiisa kor u qaadna amnigan ka shaqeyno iyo xasiloon siyaasadeed arrimahaas asaas ah dadka waxay in badan ka wardhowrayaan dhammaynta dastuurka siyaasad degan iyo in la gaaro doorasho la gaaro oo markaa dadka ay u dareeraan waqtiga marka doorashada la gaaro qorshaha ma ka mid yahay aad iyo aad waa waxyaalaha ugu muhiimsan ahmiyadaha number 1 ka waxa ka mid ah dhamaystirka dastuurka iyo sidaan la soconay shacabka Soomaaliyeed loo ogolaado oo loo fasaxo inay qayb ka noqdaan hanaanka dimuqraadiyadda waddanka iyo doorashooyinka waddanka shacabka Soomaaliyeed inay awood u leeyihiin inay dooran karaan qofkay rabaan inay dooran karaan xildhibaanadooda inay madaxdooda dooran karaan marka arrintaasna waa muhiim in dhamaystirka dastuurka in waddanka doorasho loo diyaariyo hal qof iyo hal cod iyo dhammaan sharciyada loo baahnaa arrimahaas lagu gaari lahaa oo dhan waana qayb ka mid ah qorshahan waana ka tirsan yihiin tiirka siyaasadda loo dhan yahay iyo xasiloonida ay ku qoranta Jamaal Maxamed Xasan wasiirka qorsheynta xukuumadda Soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo igaga waramayay muhiimadaha uu leeyahay qorshaha qaran ee 5 sano ee soo aadan oo dowladda ku jangoysay howlaha markaasi hortabinta leh ee markaa ay ku shaqeyn doonto dowladda federaalka ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa maanta madal ballaaran waxa uu ka sheegay mar kale in markaa doorasho qof iyo cod ah ay ka dhici karto Soomaaliya ayna tahay in la qaban karo oo uu ku adkaystay in doorashadaasi ay noqonayso mid ay qabato dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu marka hadalkaasi jeedinayay Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Soomaaliya
dhinaca fadhiyey madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay in doorashadaasi ay noqon doonto qaabka axsaabta badan ee markaasi xisbiyada ee doorashooyinka qof iyo cod. wuxuuna hadalka ka jeediyey daafurkii qorshaha qaran ee 5 sano. farxad weyn bay noo tahay maanta inaynu u dabaaldegayno ama soo bandhigayno daafurayno qorshaha horumarinta qaranka ee 9aad ku dhawaad sanadkii 3aad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee madaxweynuhuna hormuudka inoogu ahaa. qorshahani wuxuu saldhig u yahay dhowr shay iyo waxqabad oo waaweyn oo xukuumadda federaalka Soomaaliya 3 sanadood ee ugu dambeeyay ay ka soo shaqeynaysay. waxaa hubaal ah la tashi ballaaran oo ururada bulshada dhinacyada bulshada kala duwan maamul goboleedada talada iyo hogaaminta madaxweynaha hagida ra'iisul wasaaraha iyo ka qayb qaadashada golaha wasiirada dhamaantiin iyo guddida dhaqaalaha oo wasaaraddu qayb weyn ka tahay in aaraa iyo afkaar iyo talo iyo tusaale wixii la hayay khubaradii ka soo shaqeynaysay wasaaradduba lagu tuujiyay lagu soo minguuriyay qorshaha horumarinta qaranka oo aynu maanta daahfurayno. kasokow dhinacyada kale ee kala duwan ee ballaaran ee qorshuhu 20 ilaa 24 ee ku talagalka uu dhigayo waxa uu ka kooban yahay dhowr waaxood oo waaweyn oo saldhig u ah tubaha horumarinta qaranka oo ra'iisul wasaaruhu hormuudka u yahay dhaqaalaha iyo dubahabeynta ballaaran ee aynu ku sameynay amniga arrimaha bulshada iyo siyaasadda loo dhan yahay. waxaynu ogsoonahay maran madoon ah in dubahabeynta dhaqaalaha wax badan aan ka qabanay. 26 wasaaradood ee jira ugu yaraan 25 kamid dakhli bay ururin jireen oo ay dhaxleen. dhowr iyo 10 shirkadood ayaa dakhli ururin jiray. maanta meel baan ku soo ururinay nidaam lagu kalsoon yahay oo maaliyadeed baynu leenahay. dubahabeynta dhaqaalaha iyo kobaca dhaqaale horumarka aan ka gaadhnay iyo ka uu maraya iyo aaminka maanta bulshada adduunku ay kalsoonida ku abuuran. waxaynu ognahay warbixinaha kala duwan ee ka soo baxaya in aynu horumar weyn dhaqaalaha ka gaadhnay una baahan tahay 5 sano ee soo socda inaynu dhigno yoolkii horumarkaas mid ka sii ballaaran lagu gaari lahaa. sidoo kale arrimaha bulshada ama caafimaadka waxbarashada deegaanka iyo shaqo abuurka iyo shaqaalaha dib u habeyntiisii oo waxqabad weyn oo ballaaran iyo amniga oo aynu ognahay golaha wasiirada markii aynu ahayn in wasiiradii naga horreeyay qaarkood yiraahdeen ra'iisul wasaareyaasha qaar baa waxay yiraahdeen kuna taliyeen Soomaaliya amnigeeda iyo ciidamadeeda in dib loo habeeyo wax laga qabto waxa ka dhow Soomaaliya inay nuclear samayso Soomaa ahayn. maanta waxaynu ka marakacaynaa sanadkeenii 3aad soo bandhigida qorshaha horumarinta qaranka ee 9aad 3 sanadood iyo 3,000 oo wax qabad. hase yeeshee mudane madaxweyne ummadda Soomaaliyeed dhegtaa guuxaysa. xildhibaanada iyo siyaasiyiinta halkan jooga waxay leeyihiin sanadka 2020 iyo shacweynaha Soomaaliyeed ee kale iyo golaha shacabkuba muxuu la waabariisan doonaa sanadka 2020 waxa la sugayaa ma hirgelin karnaa haddii qorshihii horumarinta qaranka aynu dhamaystirnay haddii dib u habeyntii ciidamada wax weyn aan ka qabanay haddii arrimihii bulshada wax weyn aan ka qabanay oo aanu ognahay iskuuladii dawladdu inay gacanta ku hayso manhajkii dhawaan la bandhigay cusbitaallo maanta aynu inagu maamulnaa jiraan oo la soo noqonay xuquuqul insaanka iyo konfenshanada ama heshiisyada looga baahnayo waaweyn meel badan ka gaadhnay 57 sharci iyo siyaasadood ay xukuumadda ka meel mareen madaxweynuhu shuruuc badan saxeexay haddana saxeexi doono qaar kale oo kale. ummadda Soomaaliyeed waxa ay naga sugaysaa in aynu hirgelinno hal qof iyo hal cod doorasho ah. talada iyo awoodda iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed baa iskale. waa inaynu talada shacweynaha Soomaaliyeed dib ugu celinaa. madaxweynuhu waxa uu diyaar u yahay ra'iisul wasaaruhuna uu yahay ummadda Soomaaliyeed taladeeda inay qaadato iyagu cidii ay rabaan ay doorato haddii aynu tartamayno oo ay dib inoo dooranayaan oo 5 sanadood oo dambe halkii aan gaarsiinay meel ka sii fog aynu gaarsiinayno ummadda Soomaaliyeed bay u taallaa. haddii cid kale ay dooranayaan ummadda Soomaaliyeed bay u taallaa. laakiin innaga maxaa la inaga rabaa amnigii wax weyn haddaan ka qabanno suurto gelinay maya nuclear inaanu samayno waxa ka dhow inaanu dib u habayno amniga. haddaanu suurto gelinay arrimihii bulshada wax baan ka qaban karnaa. haddaanu suurto gelinay dhaqaalihii dib baanu u habaynay oo system iyo nidaam dunidu ku soo hirato oo ay inagu soo dhowdahay deyn cafiskii dhawaan Mareykanku ay ogeedeen
howlaha waaweyn ee tallaabooyinka hore aan qaadnay inay hirgalaan haddana waan qaban karnaa doorasho hal qof iyo hal cod ah ummad yahayeynaan werwerin wuxuu yidhi hadraawi rag siyaasi wada noqoy wada furay silsiladaha hadba taanu suurayn yidhi anigu ansax siyaasadda hoggaan baynu leenahay madaxweynuhu wuxuu inagu hagayaa dhaxalka uu ka tegayaana ay tahay in dalkan ay ka hirgasho 2020 ummad yahay doorasho hal qof iyo hal cod ah kuna salaysan tartanka xisbiyada badan mahdi maxamed guuleed qadar ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya ayuu kaasi ahaa hadalka ra'iisul wasaare ku-xigeenka ee markaasi ku shaaciyay in doorasho qof iyo cod la qabanayo wuxuu imaanayaa xilli dood adag ay ka taagan tahay sharciga doorashooyinka Soomaaliya iyo nooca doorashada dalka ka dhacaysa 2020-2021 oo ay baarlamaanka doodiisu ay ka soconayso sharcigaasi waxaad la socotaan barnaamijka dabagalka wararka oo si toos ah idinkaga imaanaya stuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho wagaag 17 bishii Julaayo sanadkan 2019 madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa magacaabay guddiga dab u heshiisiinta wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya haddaba muddada ay jireen guddigaasi maxaa u qabsoomay halkayse wax u marayaan xilli maanta Somaliland xubin u hadashay ay sheegtay in wadahadalladaasi ay sharuudo ku xirayso cali axmed jaamac jangili xildhibaan ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya ah kana mid ah xubin guddigaasi wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland ka mid ah ayaa stuudiyaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho igula sugan barnaamijka dabagalka wararka ayuu uga qayb galaya xildhibaan cali axmed jaamac xildhibaan ku soo dhaw barnaamijka dabagalka wararka waa dhawahay wayahay tan iyo markii 17 bishii Julaayo 2019 uu guddigiinan magacaabay wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland madaxweynaha Soomaaliya maxaa idin qabsoomay xagaysa wax idin maraya cabdicasiis dhowr 6 bilood baan magacawnayn saddexdii bilood ee ugu dambeysayna waa howlgalnay xog badan baan ururinay documents nooc walba oo kala duwan oo kuwa taariikheed iyo kuwa sharci iyo kuwa dhinac walba taabanaya iyo xogo badan baan ururinay waxaanan qabnaa hawshaas aanu ku jirnaa inay waxtar weyn u leedahay wadahadallada aan la geli doono walaalaha iyaga Somaliland wayahay mudane xubin ka mid ah guddigaasi ayaa tahay baarlamaanka Soomaaliyana waad ka tirsan tahay dabcan xageebay tahay halka aad wax ka bilaabi doontaan mar haddii aad 5 bilood howlahaasi aad ku jirteen waxa la sameeyay xafiis rasmi ah oo jiri doona oo xubin waayo arag oo khabiiri uu madax ka yahay xafiiskaas oo xogayana noqonaya isku duwana noqonaya guddigu xafiis iyagoo kaashanaya xukuumadda iyo madaxweynaha marka wada hadalka dhinaca kale guddigiisa diyaariyo waxaanu diyaar u nahay inaanu la falgalno wayahay sida marka waa kugu soo noqon doonaa mudane xildhibaane aniga oo su'aalo kale oo dhowr ah guddiga iyo waxyaabihii markaasi aad ku howlantihiin wax badan ka weydiin doono maanta Somaliland waxa ay sheegtay in ay wada hadalladaasi ku xirayso sharuudo adna aadan Ismaaciil oo u qaabilsan Somaliland wada hadallada Soomaaliya ayaa magaalada Hargeysa shir jiraayad ku qabatay arintaasi ka sheegtay iyadoona markaa hoosta ka xariiqday in wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ay wada hadalladaasi ku xiran yihiin sharuudo taasi ay u soo qaadatay in la fuliyo qodobadii hore oo ay ku heshiiyeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya sida Sheekh Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh iyo madaxweynayaashii hore ee Somaliland soo maray sida madaxweyne Siinaayo iyo qodobadii lagu heshiiyey in la meel maray dhowrkii shir ay isugu yimaadeen Somaliland iyo Soomaaliya
adna aadan codkeeda ayaan dhagaysan doonaa dibna waxaan ugu laaban doonaa waraysiga xildhibaan cali axmed jaamac waxay ku heshiiyeen qodobadii hore ee shantii shiree ka horreeyey lagu heshiiyey inay weli waafaq yihiin oo heshiiskii go-aanadii laga gaadhay sidooda yihiin lana sii xoojiyo oo mar kale la ogolaado lagu heshiiyo in cirka maamulka cirka laga wado magaalada airportka Hargeysa ee Somaliland qodobadii hore na sidoodii loo wado oo sidoodii ay yihiin shirkii toddobaad waxaa mar kale gogol fidiyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Djibouti wuxuu dhacay 27kii bishii 10aad 2019 waxaa hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Somaliland anna xubin baan ka ahaa intaasoo shirar waxaa loo galay hal wada hadlo oo heshiis hala gaadho oo wada hadalladu ha noqdaan qaar isbiirsanaya oo mid walba wixii lagu heshiiyey ay jiraan oo qaar lagu sii biirayo waxaase nasiib darro noqotay in madaxweynaha dalkan jaarkanahay Soomaaliya madaxweyne Maxamed Farmaajo in qodobadii lagu heshiiyo ee hore oo dhan uu wada buriyay oo intuu maalin soo toosay uu yiri saxiixyadii madaxweynayaashii hore waxba kama jiraan heshiisyadii lagu heshiiyay waxba kama jiraan oo uu subax intuu soo toosay yiri diyaaradaha laga maamulo magaalada Muqdisho marka waxa isweydiin leh waxa heshiis lala galaa qof qowl leh oo wixii lagu heshiiyay fulin kara waxa isweydiin leh wada hadalladan iminka la rabaa ma kuwii hore la ansixinaya ilaa halkaas ay ka bilaabmayaan oo 8aad iyo 9aad iyo 10aad baa ku biiraya haddii se heshiisyadii hore ay noqdeen waxba kama jiraan waa gacmo daalis waxaa la doonayaa madaxweyne qowl leh oo wakaalad ka sita ummaddiisa oo shicibka Soomaaliya soo doorteen oo wixii madaxweynayaashii hore ku heshiiyeen fulinaya oo ixtiraamaya oo qowlkii uu ku fulin lahaa leh iyo awood uu ku fulin lahaa wada hadalladu halkii ay marayeen من كواد إلى اللحاد يسوع دوان شادعي ومدو يسوع دوان يسي بايع المشترك وكلا الصعدة إمكبا لا هو على الصومالي هل كان لك هنا نكون دوينا أرضي ذا الصومالي كتبها هل كان نروح كبرنا ومدو إستحقشا صومالي يد الحيس مر هيك عب صدان هل كان يوهي مادان الحيس ذاتك الصومالي ولا شيء هل كان يكون كل مان ذاتك هو ذي قربه وجي مادة واتلا الربو يسوع دوانشو وحولا قبسي واتلا الربو Soomaaliland لأنه يسوع دوينيسا ومدة Soomaaliya دبت بدني هايسو صدق كسرات دباتها علوسي هايسو إن دباتها كبحضو أو يمرون دولة يالتو سانو نقبل الدولة ويالني إن يمرون نبتقليه هلان سانو نقبل نبتقليه وهلاي إن عرورت نوكرتو oo dhalinyarada wax noo barato ay u barato kuwa iyagu u bartaan oo kuwa iyagu say u koraan kuwadana u koraan oo qaxootiga ka soo ururaan oo dalkooda ilaashadaan oo aanay u baahanin cid dalka u nabadgelyada u ilaalisa wax colaada oo dadka shicibka Somaliland iyo shicibka Soomaaliya ka dhaxeeya haba yaraadee ma jiro waxaan kalgacayl iyo walaalnimo iyo jaarnimo aan ahayn labada shicib uma dhaxeeyaan dawladdii lahayd waanu matalaynaa ayaa la garan laayahay si loola xaalo waxaanu ogol lahay
in la wada hadlo oo wax la dhiso oo gobolkeena la dhiso oo nabadgelyada la dhiso oo baayaca mushtarka la sii dhiso waxaanu ogolahay in dad dhexdhexaadii yimaadaan waxaanu ogolahay in wixii nabadgelyo iyo horumar u soo kordhinaya mantaqadoo dhan inaanu ka qayb galno aanu gacan ka geysano saanu 30 sanadoodba uga geysanaynay Soomaaliyana ku soo biirto dib u dhiska mantaqada dib u dhiska geeska Afrika oo aanay noqonin dhaawaca meesha kaliya dhaawac u geysata mantaqadan geeska Afrika dadka wada hadlaya waa inay ahaadaan dad matalaya labada ummadood aanay noqonin dad ama godob ka galay oo ama xasuuq lagu haysto oo xasuuq ka qayb galay oo burbur ka qayb galay oo dhibaato ka qayb galay maatadii Somaliland ka qayb galay in hadan la yiraahdo wada hadal baa la gelayaa shakhsiyaadkaas ma suura galayso aqliga ma galayso in dad Somaliland u dhashay oo caruurtoodii iyo dadkoodii iyo halka joogaan oo Somaliland aanan cidi ka lahayn oo caruurtooda in badan ka dhaliyay anigu shakhsiyanba inay ka soo jeestaan meel kale oo ay u galeen malaha hunguri geeyay malaha siyaasadii geysay ikhtiyaar bay u leeyihiin laakiin se uma hadli karaan kama qayb geli karaan wada hadallo Soomaaliya iyo Somaliland ilaa waa dad Somaliland u dhashay oo inta anigu Somaliland ahay inteed la eg marka waxa weeyaan dantu hal wada hadlo waa inoo dan oo dadka shicibka Soomaaliya ay dan u sii tahay adna aadan Ismaaciil ayay ahayd taasi oo markaa wariyaasha maanta kula hadlaysay magaalada Hargeysa mar ay ka hadlaysay arinta la xiriirta wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya waxaana ay sharuudo adag ku xirtay wada hadalladaasi wali waxaan ku guda jirnaa waraysigii aynu la yeelanaynay xildhibaan Ali Axmed Jaamac oo markaa kamid ah guddiga wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo dhawaan magacaabay madaxweynaha Soomaaliya xildhibaan Ali Axmed Jaamac oo dhageysanaysay adna hadalkeeda sharuudaha ku jira wada hadalladaasi ay ku xirtay ama Somaliland ay ku xirtay wada hadallada wax caqabad ah soo idinku keenayaan in arintaasi maanta ka soo yirtay Somaliland Cabdicasiis hadalka ay jeedisay adnaadan dhakhtar waa dhageysanayay iyo shuruudaha ay sheegaysay leedahay wada hadallada lagu xidho ama hadday tabasho jirto waxyaalihii hore looga wada hadlay qaarkood si ay u sheegaysaba ma ahayn kuwii ugu dambeeyay horta aviationka anaaba wasiirha oo xukuumadda ku jiray xukuumadda Xasan Sheekh iyo Cumar Cabdirashiid madaxweynaha ra'iisul wasaare ka ahaayeen anay ii direen anayna siiyeen discretionka aviationka agreementina la soo galo wasiirkii aviationka ee markaas Somaliland Maxamuud Xaashi saa ay sheegtay ma bahay wax badan oo aan isla soo dhaweynay waa jirtay in laga maamulo Hargeysana ma ahayn back up in Hargeysa laga sameeyay xamarna taweyn noqoto technically waxay codsadeen waxaan suurta galaynin oo rotation in uu noqoto International Civil Aviation Organization kana taa yiri suurta galma oo nala joogay khubaradii UN markii waxyaalihii yaryaraay naga qabyadaha waxaan ku heshiinay wasiirkii runaantii ninaan ixtiraam iyo qiimo weyn u hayo runaantii aanu si fiican oo ehelnimo oo walaalnimo u wada hadalnay inuu isna madaxweynihiisa ku noqdo annaan madaxweynaha hayga ku noqdo haddana waxa taagan guddigu waxay diyaar u tahay marka ay guddiga Somaliland ka socotaa ay wada hadlaan wixii jira waa laga wada hadli karaa ama wixii fulin u baahan ama wixii kala dhiman ee la buuxinayo annaga waxa naloo xil saaray oo aan uga dawladda Soomaaliyeed wakiil uga nahay inaan wada hadallada galno laakiin wada hadallada ma bilaabi karno haddaanan counterpart lahayn guddiga waxa laga sugayaa walaalaheen Somaliland
markay yimaadaanna ishu nooc walba weliba anagu kuwaa keliya ee yaryar iyo aviation iyo ma rabne waxyaalaha masiiriga ah ee ummaddan midnimadeedii iyo nabadeedii iyo walaalnimadeedii soo celinaya ayaan rabnaa inaan xooga saarno. way wadahadaladiina aad bilaabaysaan ama aadba qorshaheeda aad wadaan oo madaxweynuhu idii xil saaray ma ku jirtaa in la baabi'iyey qodobadii hore oo ay Somaliland iyo Soomaaliya ku wada hadleen sida aadna ay sheegtay? wax la baabi'iyey ma jira, hal qodob oo la baabi'iyey ma jira. heshiisyadii oo dhan waa haynaa. marka wadahadalku bilowdo wixii hore qabyada u ahaana in la dhammaystiro wadahadalladu bilowdaan sidii xal looga gaari lahaa, xal waara. annagu xataa diyaar keliya uma nihin waxyaalaha yaryar ee aadna sheegaysee waxaan rabnaa qadiyadihii waaweynaa ee masiiriga ahaa inaan waajahno oo xal laga keeno si loo sameeyo midow dadkoo dhan wada dhisanayaan, labada dhinac ay wada dhisanayaan oo wixii dhibaatee jire hore mustaqbalka dadka loo taliyo, wixii dhacay dhace mustaqbalka dadka bulshada Soomaaliyeed iyo shacbiga Soomaaliyeed mustaqbal fiican loo sameeyo. guddiga qorshaha ma ugu jiraa in halkiisii uu kasii ambaqaado waxyaabihii horey labada dhinac ay ugu wada hadleen? dabcan wax allaaliyo wax ka mamnuuca in laga wada hadlaa ma jiraan. annagu diyaar baan u nahay, madaxweynaha iyo xukuumadduba idin bayna siiyeen inaanu howlahaas geli karno annagoo ka wakiila. marka walaalahayo noo yimaadaan ee nala falgalaan markaas ayaanu tallaabo tallaabo u eegaynaa iyo qodob qodob waxa ay sheegayaan. weli ma la samaysan wax xiriira Somaliland intii la magacaabay guddigiinan dhab u heshiisiinta ee wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland? xukuumaddu waa wada xiriiri jireen. maalin dhaweytana shir baa ka dhacay Djibouti, waana wada xiriiraan. dowlado badanna waa nagu dhex jiraan. wayna sheegtay iyada laftigeedu shirkaas wixii waxaan u cadaynay inaan anagu diyaar u nahay wada hadalkaas. dowladaha daneeya siyaasadda Soomaaliyeed iyo wanaagga iyo wada hadalkuna aad iyo aad bay anaga noogu booriyeen in wada hadalka dhaqso loo bilaabo. waxayna noo sheegeen iyagana inay la hadleen. diyaar baan anagu nahay marka walaalahayn ay soo diyaar garoobaan oo ay wada hadal u diyaar garoobaan. halkee bay idin qorshaysan ma dibadda mise gudaha wadanka halka ay wada hadallada aad ku rajo weyn tihiin inaad ka bilowdaan? meeshii lagu heshiiyo marka ay guddigooda soo magacaabaan meesha aanu isla garanno in lagu wada hadlo ayaa lagu wada hadlaya. meelaha aanu tilmaamnay run ahaantii iyaguna mar tilmaameen annaguna tilmaamnay waxaa ka mid ah Djibouti. walaalaheen Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ah madaxweyne aad iyo aad u daneeya arrimaha Soomaaliyeed, Soomaalina ah. Soomaalida wada jirkooda iyo wanaagooda iyo horumarkooda ana aad u jecel ayaa run ahaantii in magaaladiisa iyo dalkiisaba ay ka dhacdo wada hadallada ugu horeeyaan oo anagu jecelna. aad iyo aad buu mahadsan yahay xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jangili oo markaa ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya isla markaana xubin ka ah guddiga wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya oo barnaamijka dabagalka wararka u waramayay. ugu dambeyntiina daawadayaal dagaalo xoogan ayaa maanta waxay ka dhaceen deegaanka Goof Guduud oo qiyaastii dhowr iyo 30 kiiloomitir u jira magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. dagaaladaasi waxaa deegaankaasi ku qaaday oo saldhigyo ciidan oo ciidanka militariga Soomaaliya halkaasi ku leeyihiin ku qaaday ururka Al-Shabaab. warar hadda soo gaaray ayaa sheegaya in xaaladda deegaankaasi ay degan tahay, laakiin maanta dagaal xoog leh oo halkaasi ka dhacay oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo gaaray. ururka Al-Shabaab baraha bulshada ay ku leeyihiin internetka waxay ku daabaceen warar la xiriira in deegaankaasi ay weerareen isla markaana ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya ay halkaasi ku dileen.
ciidanka xoogga dalka Soomaaliya saraakiishooda oo dhankooda warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in hadda xaalku uu degan yahay deegaanka Goofguduudna ay gacanta ku hayaan. intaasi waxaan ku joojinayaa barnaamijka dabagalka wararka tan iyo kulanto dambe intaan dib u kulmi doono barnaamijka xiga. nabadgelyo.